السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. maanta waa September 2 oo September 2deedii 2017 saddex cisho ka horta waxay la soo hadlay nin Soomaaliyeed oo ka socda dad Soomaaliyeed oo xaniban. sheekadoodu waa sheeko yarad moodid ina aan hore loo maqal. ninkani markaa wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inuu ummadda Soomaaliyeed meel walay joogtaba in la gaarsiiyo warkayaga. ilaahay baan subxaanahu wa ta'aala saddex cisho baryayay waxaan doonayay markaa bal jihaadan u dhaqaaqo ma dadkan ogeysiiya miyaan ka aamusaa maxaan ka qaban karaa waayo waa dad muslimiin oo xaniban oo cadiban oo doonaya cid caawisa. sidan idin sheegay saddex cisho ka hortay bay la soo hadleen ninka telefoonka igala soo hadleen waxa la yiraahdaa Cabdi Maxamed oo Sigaal. ninkan wuxuu ii sheegay inay bishii June 25keedii 2014 ina markab ay ku jireen oo asagu markab yar oo dooniyaha u dhaxeeya wadanka Imaaraadka ina markabka la afduubay oo Iran ay ka qaaday ka afduubtay Ras Khayma waa badda Imaaraadka. wuxuu ii raaciyay inta in leeg wuxuu yiri September 23keedii sanadka qudhiisa 2014 markab kala laga soo qabtay badda Oman. labada markabba waxa lagu tuhmay buu yiri oo lagu tuhmay inaanu Iran batrool ka xadnay mana jirta buu yiri. ragga ku jira labadan markab waa 24 qof oo Soomaaliyeed. markuu ii kala qeexo ii kala sheegay wuxuu yiri 12 waxay ka yimaadeen wadanka la yiraahdo Somaliland, 12 waxay ka yimaadeen wadanka la yiraahdo Puntland, midna wuxuu ka yimi Muqdisho oo Soomaaliya. dadku inkastay wada Soomaaliyihiin siyaasiyan saasayna isu qaybinay wa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ninkan wuxuu yiri markii la qabtayna la geeyay Iran meel baan la geeyay la yiraahdo Bandar Abbas waa markaa waa dekada Abbas. wuxuu sheegtay in la yiri laba choice baa leedihiin rag baa tihiin Iran batrool ka dhacay laba mid soo gala inuu qof walba isku furdaamiyo isku furto 65 yani $65,000 oo Mareykan ama lagu xukumo 15 sannadood oo jeela. waxaan idinku celinayaa raggan waxa la qabtay qaar waxa la qabtay 25kii June qaar waxa la qabtay 23kii September 2014. wuxuu yiri arintana lagu haysta waa arin beena. waxaanu jecelahay markaa inaan ummadda Soomaaliyeed meel walay joogaanba inaan warkayaga la gaarsiiyo waayo uu og yahay inaan anigu nin dawladda ku xiran aanan ahayn nin siyaasiyana aanan ahayn laakiin numberkayga meel buu ka soo helay sidoo u soo helay runtii siimo cadeyni laakiin waa nin jeel ka soo hadlaya buu ahaa. ragguna way ka aguuxayaan raggan magacadooda idin wada tirin doono. ragganna markaa waxay dhawaniyo warkayaga ciidimay lama gaarsiinin ee waxa noo gaarsiisay bal Siciido adduunka noo gaarsiin. waxaan la xiriiray markaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo adugu website-yada qaarkood ay ku gacan ay ku leeyihiin ama ay gacantaba ku hayaan. dhalinyaradaas markaa waxay dalbatay in bal warka la soo xaqiijiyo anigoo og inuu diinta islaamka inagu amrso inaynu isu gargaarno oo muslimku nabiga sallallahu alayhi wa sallam yiri al-muslimu akhul muslim ونو شيغي إن المسلمين تسعاويان وحن سير قيبتي ka geyso oo warkan dadkan muslimiinta ee xaniban ee Iran ku xaniban cidina ka daba tagin ilaa 2014kii bal social media gee oo gali dadku marka warkooda ha ogaadaan. wuxuu ii sheegay inuu dadkii ay u shaqeyn jireen Imaaraadka gudahooda inay la yiraahdo hebel iyo hebel telefoonadooda uu isiiyay. waxaan ku dhaqaaqay marka sidaan warkan u hubsada inaan dadkii la hadlay Imaaraadka joogay. markii la hadlay maalinta qudheedan waxay yiraahdeen warkaas waa dhab in ragga waa la hayaa 24 nin weeye way xaniban yihiin cid u gacan idu kacday ma jirto. dhaqdhaqaaq yar waanu sameynay bay yiraahdeen oo dawladda Soomaaliya
dowladdii hore ku saabsan waxaan jecelahay haddii dadka iminka waddanka haya ama farmaajo ama silaayo ama dadka meelahan kale ay dadkan kasoo jeedaan in haya inay bal warkan haddii la gaarsiin karo la gaarsiiyo ayaguna dhageystaan raggan waxay sheegtay asagoo ninkan cabdi maxamed oo sigaal uu u hadlayay raggan ayaguna ay ka wada ag waxayaan magacyada markay u yeedhinayeen ay caawinayeen inay raggani ku jiraan rag waayeel oo da oo markii horeba kaadi macaan iyo blood pressure iyo dhiigka waxaas dhan qabay iminka intay ku jeel ku jireen ay xaaladooda aad iyo aad u sii xumaatay waayo caafimaadkooda lama daryeelo cidna danka may gelin cid u doodano ma hayaan cankii ayagu soo warrameen waxaan idin sheegayaa aan idinku adkaynayaa warkan anigu idin sheegayo waa war aniga aan dhagteeda ku maqlay dhowr goor ay la soo hadleen maalinta qudheeda dhowr telefoon oo waliba ay xadayeen igala soo hadleen ma aha dadana anigu la xidho wadad ayuu igala soo xidhay jeelka gudihiisana igala soo xidhiidhay yiri si bishiiba marba meel la geeyaa markaasay ka faa'iideystaan oo telefoono ay soo xadaan sida marka ama loo keena sida marka ay dad ula xidhiiri karaan marka tan aniga ila soo xidhiideen inay cid hore ula xidhiideen ma ogi waxay dalbadeen markaasaan idin sheegay in xaalkooda shaaca laga qaado dadka Soomaaliyeed meel wali joogaan bal la gaarsiiyo dawladda Soomaaliyeed loo sheego wixii ciidan u ahlana ay u kacdo ay u dadaasho waxaan jecelahay inaan marka magacyada ii xaadiriyeen inaan idin xaadiriyo ninka la hadlaya waxa la yiraahdaa Cabdi Maxamed Owsiga wuxuu labada markab rakabtana ayaa waday mid waxa la yiraahdaa Ahmed Maxamed Suleymaan midna Ahmed Cabdi waxa ku xiga marka ragga injineerna ah laba injineer ay wateen oo la yiraahdo Saciid Maxamed Xuseen iyo Cabdirasaaq Maxamed Xuseen oo walaalo ah waxa inta u dheer ragii marka ay tiriyeen 24 baan idin tirinaya intii ka hadhay inta nimka soo sheegay waxa ku jira ragga in la yiraahdo Yaasiin Cabdiraxmaan Ahmed iyo Fuaad Faarax Xasan iyo umman magaciisa aan degdeg u qoro oo umman matalo Umar Ramso Maxamed Yaxya Ahmed waxa ku sii xiga inta aan idin sheegaya nin la yiraahdo Muumin Maxamed Umar Ahmed Abd Nuur Muuse Siddiq Muuse Xaashi جمعالي عبد محمد كيسي عمر علمي عبد الرحمن عطاني إبراهيم محمد عبد ديرية عبد الله برخضل ديرية باشا خليف وعيس حسن أحمد وعيس عبد الرحمن عبد الله أمام بشار أمالينا إسماعيل عبد الدعالة خضر أحمد روبلة يا خضر عبد الله الصلب intaasi waa intii aan qoray 24 magac ay ii soo yeedhiyeen ee sheegeen waxaan leeyahay marka 24 cidii garanaysa bal u gargaara waxay sheegteen raggan inaan idin sheegay mooyaane inay 12 ka yimaadeen wadanka lagu tilmaamo wadanka la yiraahdo Somaliland I think so umaleyn inaan taa sheegay COVID-19 ay yiraahdeen waxaan ku abtirsanaa wadanka la yiraahdo loo bixiyay Puntland نينا وكسو جيدو مقدشو وحن ليها ولا ليال المؤمن أخو المؤمن إنما المؤمنون إخوة ورها لسوغر قارو وركن هدي داد كان عيد أطولة ودي أيسكو أهلي هينو ودي ريركيا وحنوغو جيدانا دي أهلكي ولا لدي آبياشي المادر ردي هلو قرمدو داد كان واداد حنبان قاربا حنون صنية قاربا عودركو كف فوقادو كتلحتقي وحاني كو حليه ودن كاليرا هذا إيران ميشي كت المامين إني جوغانا وحدا بندر عباس أما ميناء عباس أما الدكدة عباس مين لقوت المامو ويه إلهي بانا حقيقة لكن أنا أنت سوان سو قد بيي وركنا يسكهو بصدا ضد كان بارا هدي أتعيشه نمبرك ضد كيسيين يلي وان ويوشقين شريان ويقول قري إن لبدي دونيود بين القاضي وحبك ما قبل نمبرك جاي سو حديدا و 416-880-1301 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.